السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qodobada ugu waaweyn barnaamijkeena galabnimo waxaa kamid ah maanta gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dalka Iran ayaa war culus soo saaray. ninkan waxa uu leeyahay macquul ma noqon karta buu dhahay weerarada Iran lagu qaadayo Mareykanka inuu noqdo midka maalintuu rabo bilaabayo markay xaaladdu ku adkaato la joojinayo. muxuu rabaa marka ninkan qorshe yaable uu soo bandhigay ayaanu barnaamijka ku eegi doonaa. qodobada sidoo kale aanu barnaamijkeedu ku heenayana waxaa kamid ah wargeyska Financial Times ayaa qoray warbixin cajiiba oo tilmaamaysa Imaaraadka Carabta oo markan isu soo dhiibay. Imaaraadka xaaladda ku adkaatay. Imaaraadka wuxuu la xiriiray Iran wuxuuna la galay heshiis diblomaasiyadeed mid dhaqaale mid siyaasadeed dhinac walba ah. ganacsigii Iiraaniyiinta ay ku lahayn jireen Imaaraadka si dhammaystiran loo soo celiyay. waxaan ku hayaa Imaaraadka dhuumada oo dhinaca Iran u soo dhuubanay Netanyahu ka soo dhuutay. qodobada soo kale aan barnaamijkeedu ku heenayana waxaa kamid ah Mareykanka waxaa ka socota arrin cajiiba oo aad qulubta malaayiin muslimiin u soo jiiday. ka waran ciidamadii Mareykanka oo islaamka soo galay waliba kuwa ku labisnaa dharka ciidanka. waxaan ku hayaa mid kamid ah askarta Mareykanka ee wadamo kala duwan loo diray ugu dambeyn islaamka inuu qaato Ilaahay ku hanuuniyo. cajiib. waxaase intaas oo dhan ka daran wuxuu ka sheekeynayaa waxa ku keenay islaamnimada inuu qaato. qodobka ugu dambeeyana waxaan idinku hayaa qiso qalbi taabada oo Al Jazeera warbaahintu ay baahiyeen. dadka reer Gaza ayaa lagu sheegay inay yihiin dadka adduunka ugu abaalka badan. cid abaal loo gala Gaza ugu abaal badan baa la leeyahay. waxay u soo mahad celiyeen carruurta reer Gaza ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez maadaama Spain reer Gaza ay u hiilisay. laakiin ra'iisul wasaaraha Spain markay fariinta reer Gaza carruurta soo gaartay ninka waa nin yaab leh subxaanallah si cajiiba ayuu uga jawaabay. iyadoo maqal iyo muuqaal ayaan idiin hayaa qodobada iyo kuwa kale. waada mar kale magacaygu waa Mustafa Ali halkana waa Kow Somali Media. gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dalka Iran ayaa waxa uu ka dhawaajiyay qorshe yaab leh. ninkan waxa uu leeyahay Mareykanka waxa uu soo weeraray Iran dhowr jeer. waxa uu isaga haddana codsaday in wada hadallo la aado kadib markii qorshihii uu markii hore rabay ay u hirgeli weysay. dadka reer Iran uma qalanta buu dhahay in dhiigoodii iyo daarahooda la burburiyo gardaro weerar oo lagu soo qaaday. haddana markii midkii gardaroolaha ahaa ama daalimkii waxa uu rabay uu waayey haddana inuu nabad iyo heshiis qaato. waxa uu yidhi ma go'aaminaya Mareykanka xilliga dagaalka uu joogsanayo. waxa uu go'aansan karaa xilliga dagaalka uu bilaabayo. ma yeeli doona buu dhahay mana aamini doona Mareykanka. hadalkan waa hadal cajiiba. ninkan wuxuu leeyahay Mareykanka maadaama hadda xaaladda ay ku adkaatay difaacyadii bariga dhexe ka dhamaadeen askar badan uga dhamaatay dhaqaale badan uga baxayo Iran ay muuqato 10 sano kadib dagaalka inay sii wadi karto iyo 100 sano waxay u ordeen dhinaca nabadda. laakiin gudoomiye ku-xigeenka wuxuu leeyahay waa inaan dib u fiirnaa siyaasadda aan kula macaamilna xilliga dagaalka Mareykanka. ilaan Iran waxaa la leeyahay inay aqbasho ma ahan Mareykanka marka xabad joojin u dheer xabad joojin qaado. maalmihii hore may aqbalin laakiin usbuuci hadda ahaa maalmihii u dambeeyay waxay aqbashay Iran inay duqeynti joojiso. khibrada waxay leeyihiin Iran haday duqeynti sii wadi lahayd Mareykanku ku jilcay. xilaa hadda marka dambe markii hore way ka fiicneed Iran baa soo fiicnaatay baa leeyahay. Mareykanku wuxuu islaam markaa bay u jilcan tahay. sababta arinta loo leeyahay waxay tahay markan xitaa Israa'iil dagaalka inay ka qayb gasho diiday. markii hore way ka qayb gali jirtay markaa laakiin way ka joogsatay. Trump arintaas la weydiiyay wuxuu dhahay haday Israa'iil soo gashay iyada la feedo u baqayso Iran inay garaacday ka baqaysaa. macnaheedu waxa way Mareykan Israa'iil baa waxay bilaabeen inay dib uga sikadaan Iran. bal ila daawo telefishinka qaranka Iran warkan uu ka sheegay gudoomiye ku-xigeenka dalka Iran. ما به عنوان یک شخص عرض میکنم ما هیچ وقت با آمریکا نباید در آتش بس باشیم. اصلا آتش بس با آمریکا معنا ندارد. معناش نیست که مذاکره نکنیم. یعنی ما دوگانه آتش بس و جنگ رو نباید بپذیریم. ما الان تو آتش بسیم با آمریکایی‌ها؟ ببینید یکی از ایرادا اینجاست. ما نباید با آمریکا اجازه بدیم که هر وقت دلش خواست حمله کنه و بعد دلش خواست عقب نشینی کنه. یعنی این ابتکار عمل 50% دشمن رو در واقع در مسائل گوناگون پیش میاندازه. یعنی آماده باشه ما دقت کنیم کی میخواد حمله کنه و هر وقت هم اراده کرد و دید که یک وضعیتی است که نمیتونه حمله بکنه عقب نشینی بکنه باز بره مثلا یک هفته دیگه باز شروع بکنه. این واقعا مورد پسند مردم و عاقلانه. nimanka Iiraaniyiintu waa niman yaab leh. macnaha ninkan wuxuu leeyahay nimankan maadaama ay jilceen
inaan fursad siino oo aan ka aqbalno inay haddana dib isu soo qabanqaabiyaan. hadda jurbaba ninka la yidhaahdo Bradson Cooper waa ninka ciidamada Maraykanka hogaamiyo bariga dhexe ama ciidanka dhexe Maraykanka generaal ka tirsan wuxuu leeyahay dagaalkan sidan Iran duqeynta hawada kaliya waxa macna ma sameynayso. haddii aan dagaal toos la galeyno Iran waa inaan dagaal toos la galnaa heshiis toos la galnaa. Maraykanka u cadaatay hadda ciidamadoodii inay xitaa wadi karin dagaalka nooca hadda Iran ay kula jiraan. waayahay saaxiibada qiimiga leh qodobka xiga barnaamijka ayaynu toos u galeynaa. mid tani waa mid kamid ah warbixintii ugu xiisaha badnayd ee dhawaanta laga qoray Imaaraadka Carabta. wargeyska Financial Times waxa uu qorayaa Imaaraadka Carabta UAE ciwaan waxa looga dhigay title aad iyo aad macnaha soo jiidasho leh UAE bold gambit on Iran. macnaha UAE waxay u soo dhuumanaysaa ama ay aqbalaysay inay dan ugu jirto inay Iran la macaamisho. macnaha indhaha u furmay xaqiiqday aragtay Carabti waxa uu cadaatay inuu Maraykan difaaci karin inay Iran ka maarmin in Iran Hormuz ay xirto khatar inay ku tahay dagaal hadduu dhaxawada inay ka xirmays daba dalalkan qaliijka ah oo khatar ay ku tahay. sidaa darteed Iran go'aan bay qaadatay. warbixintan oo uu qoray waxaan idiin soo koobayaa wargeyska Financial Times oo kamida warbixinada ugu xiisaha badnaa. Imaaraadka Carabta ayaa bilaabay buu yiri inuu dedejiyo qorshayaal uu ku hagaajinayo xiriirka diblomaasiyadeed iyo dhaqaale ee uu la leeyahay Iran iyadoo ganacsiga badda u dhaxeeya dekedaha Dubai iyo Iran uu dib u bilowday. sidoo kale waxaa dib loo soo celiyay duulimaadyadii ganacsi ee tooska ahaa halka dowladda Imaaraadka ay sidoo kale ogolaatay in kumanaan muwaadiniin Iiraaniyiin oo ku noolaa Imaaraadka kuwaas oo calaadii kadib ka barakacay ay dib ugu soo laabtaan Imaaraadka sida uu maanta baahiyay wargeyska Financial Times. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha Imaaraadka Carabta Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan uu dib u hagaajiyay xiriirka Iran uuna u xil saaray la taliyaha amniga qaranka Imaaraadka Sheikh Mohammed Tahnoun bin Zayed oo walaalkiis ah. macnaha Imaaraadka waxay ku tusaysaa baa la leeyahay sida ay hadda dhab uga tahay xiriirka ay la yeelanayaan Iran. sanadyadii 2003 2004 ilaa 2005 laga bilaabo 2000 ilaa 2005 Iran waxay ahayd dalka ganacsiga ugu badan ku haysta Imaaraadka Carabta. 2003 kaalin labaad waxa aad u soo gali jirtay Soomaaliya. xilligaas Imaaraadku wuxuu ahaa dal khunyar socda. xilliyadaas 2000 xilliyadaas waxaa dhintay 2002 meelahaas 2001 adiga 2000 bilowgeedii waxaa dhintay madaxweynihii Imaaraadka Sheikh Zayed bin Nahyan. Sheikh Zayed waxaa lagu sheegay inuu nin carabnimada islaamnimada aad ugu weynta laakiin wixii ka dambeeyay Maxamed markuu qabsaday waa wiil Sheikh Zayed Maxamed bin Zayed wixii ka dambeeyay markuu qabsaday Imaaraadka dhinaca reer galbeedka Israa'iil uu isku dhiib. taas waxay keentay xiriirka Iran iyo Imaaraadka inuu hoos u dhaco ilaa hadda markii dambe dagaalku dhacay xitaa muwaadiniintii Iran ay kala carareen. dada ganacsi ku haystay dada qaalo ku haystay dada hanti ku haystay because Iran si darna Imaaraadka u garacday. Imaaraadka Carabta ugu dambeyn siyaasadiisa wuxuu ku sameeyay baa hadda qiimeyn dhab ah. wuxuu hadda xiriirka la yeeshay Sacuudiga xulufadiisa hore soo ceshtay waaga u bariyay. Iran sidii hore rabaa inuu ku soo noqdo xulay war ganacsiga hagaajino war diblomaasiyadda hagaajino war darisan ilaan Iran waxa ku filan Imaaraadka inay gacan ku dhigto saacado xitaa uma baahna maalmaha lagu leeyahay because badda uu soo goyn kartaa waa duqeyna hadday dhaana hoosta uga jirtaa waa dalka ugu liitay leedahay macnaha Iran ay wax ka qaban karto ugu dambeyn saaxiibu keenay macnaha nimanka Imaaraadka waxay fahmeen hadda waayahay saaxiibada qiimiga leh qodobka xiga barnaamijka tani waa mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu cajiibsanaa ee dhaca askartii Maraykanka xilliga Donald Trump waxa badanaya ayaa la leeyahay tirada islaamka qaadanayso ee diinta islaamka aadka u soo galayso. xilligan waa mid ka mid ah xilliyada dadka xag jirka aad u soo badanayaan islaam nacaybkana aad loo faafinaya meelo badan laakiin waxaa socota in islaamka si xawli ah uu ku faafayo gudaha Maraykanka iyo gudaha reer galbeedka iyadoo la isku dayayo in shaabado sumcad dilis lagu sameeyo dadka muslimiinta. waxaan idinla wadaagi doonaa maanta mid ka mid ah muuqaaladii ugu xiisaha badnaa ee dhinaca Maraykanka ka yimaado. waxaan kula wadaagi doonaa askari Maraykan oo magaciisa la yiraahdo Christian waa magacaya
diinnimadii maahan inuu kiristaan yahay inuu su-aal iyo dood kale wahay laakiin christian waa qof magaciisa sida gabdhaha soomaalida qaar muslimo ula baxaan muslimo ma ahan inay muslimo tahay in laga wado laakiin magaceeda muslimo ah christian magaciisa christian la ninkii soomaaliga ah noqonin oo wadamadan intuu imaaday nin gaala isbarteen baa layiri markay isbaranay gaalada markay ku baranay magacooda ka bilaabaan markay gacantis geleen isbaray hello uu dhahay I'm Christian uu dhahay no magacii Christian I'm Mustafa anoo dhaacmana I'm Christian buu ku dhahay kii muslimka soomaaliga wuxuu dhahay hello I am Muslim I am Muhammad I'm Abdi Bashir inuu ka dhaho I am Muslim ninka iska barajeeyo taagay macnaha sheekada waxaa laga wadaa ninkan magaciisa Christian la dhahaa askarigan islaamka asagaa akhristay asagaa baaray asagaa kusoo qancay masaajidka u imaaday markaasuu wuxuu codsaday in tawxiidka loo qabto oo marqaati loo noqdo ilaahay inuu rumeeyo shahaada laakiin ninkii u imaaday su-aalo fiican weydiiyey laakiin waxaa fiicnayd inta uusan su-aalaha weydiin ka hor inuu hor tawxiidka u qabto qof hadduu weligaa ku imaado islaamka raba inaan galo ku dhaho shahaadada u qabo isagoo madax bannaan oo xur hadduu ku imaado shahaadada u qabo laa ikraha fi diin islaamka qasab maaha qofka asaga hadduu maskaxdii ka maaga islaamka raba inaan galaa ku dhaho su-aalo badan ha gelin bay dhahan culimada horta marka hore islaamka ha galo su-aalo fiican buu weydinaa ninkan uu imaaday masaajidkan uu yimid wuxuu leeyahay maxaa islaamka markaas wuxuu ka sheekeynaa sababtu islaamka kusoo galay waana akhriyey ilaa maalintan bilaabo buu dhahay islaamka baaritaankiisa caafimaadkii iyo isbedel hurdadeedii aa wanaagsanaatay niyadeedii ay dhisantay sakiinaan dareemay raaxaan dareemay farxad baan dareemay uu leeyahay cajiib ila daawo Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sisters, brothers, in our blessing community, Killeen Central, Texas. Today we have brother Christian O'Brien, right? Correct. Who wanna embrace Islam after studying outside and study with us here in the office, short class about Islamic faith and how to practice Islamic faith. So, let me start with you, brother, with a question. Why Islam? The religious beliefs that one God is truly believable and the teachings of Allah is very faithful to me. Mm-hmm. From the learnings and teachings that I've done on my own, that ever since I started, I felt more relaxed and at ease with my own heart and my own mind. As praying daily, I wake up with a smile and go to bed with a smile from now on. Yeah. And when I do give now, I feel more rejoiced that what I do actually has deeper meaning in my life. Yeah. Just want to confirm a word. Allah is God, is just Dieu, just language. Is the same God. Is the same God. Allah, He is God, He is Dios in Espanol. Dieu, they want to say, no difference. Okay? So that's a great brother Christian. So Shahada is declared faith. We explain what faith, Islamic faith is. So we're gonna say Shahada to be official Muslim and admit in Islam, inshallah. So say after me. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulu Allah wa ashhadu anna Isa Rasulu Allah. That's now translation. Ready? Inshallah. I bear witness. There is no deity There's no deity worthy of worshiping. intaasaynu ka soo qaadanaynaa ilaahay shahaadada ha u aqbalo hana maarad ku noolay hana ku dilo askarigan si cajiib islaam ku qaato wuxuu leeyahay ilaa maalintan salaada bilaab ilaa maalintan barashada fahmay naxariis uma iziyaaday buu leeyahay waxana aad ii cajiibay buu dhahay ilaahay kaligiis in la caabudo inay wax weyn tahay Allahu akbar dugsiyada barashada quraanka kariimka ee macallin quraan online ayaa hab online kugu soo gaarsiinaya barashada quraanka kariimka cilmiga shariicada islaamka goob kastoo dunida kaga joogto iyo waqti kastoo haysato hadii ba shaqo ku jirto iyo hadii aad gurigaaga joogto mana laha jinsi u gaar ah dugsigan waxa wax ka dhiganaya caruur iyo ciroole rag iyo dumar kuwaasoo doonaya inay bartaan barashada quraanka kariimka aqoonta kala duwan ee dugsigan lagu qaadanayo waxaa ka mid ah barashada quraanka kariimka akhrinta iyo qorista igada luqadda carabiga iyo qaybaha shariicada islaamka sida tafsiirka aqeedada islaamka
axaadiista nabigeena ee weliba fiqiga. haddaba haddii aad tahay waalid naxariis badan oo ubadkiisa la raba inuu ku barbaariyo barashada qur-aanka kariimka, wixii faahfaahina waxaad ka weydiinaysaa ciwaanada iyo taleefanada shaashada kaaga muuqda. waayahay saaxiibada qiimiga leh, qodobka ugu dambeeya barnaamijka waxaynu ku soo xiraynaa hadiyad yaab leh ayaa reer Spain ay ka heleen reer Gaza. tani waxa ay muujinaysaa xiriirka qiimo badan iyo kalsoonida walaaltinimada Spain ka dhaxayso iyo reer Gaza. reer Gaza ayaa loo gartay inay yihiin dadka adduunka ugu abaalka badan. cid abaal loo galo oo Gaza ka qiimo badan ma laha. waxaa yaab leh gabdhaha yaryar ee reer Gaza, gabar artista ah sida wax loo sawiro taqaano, ayaa darbiyada Gaza ay burburiyeen ciidanka militariga Israa'iil. waxay ku sawirtay calanka dalka Spain iyo calanka Falastiin oo isdhexgalay. ra'iisul wasaaraha Spain dhexday uga sawirtay Sanchez Petro. waxay tiri waan kaaga mahad celinaynaa, mana iloobayno abaalkaad noo gashay. mahadsanid Spain. cajiib. waa mahad celin ka imaaday ilmo yar oo aan dembi gelin, ilmo yar oo gurigeedii la burburiyey, ilmo yar oo waxbarashadeedii mustaqbalkeedii laga hor istaagay. u mahad celinayso ninaysan weligeed la kulmin, oo ay isku diin ahayn, isku dal lahayn, shaqo isku lahayn, bini aadanimo iskugu imaadeen. madaxdii carbeed iyo kuwa muslimiinta u dhowaa siduu Spain ugu danqaday uguma danqan. gabadha layaan alquuqa muuqaalkeedii waxa uu gaaray ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez. ninkan waa nin cajiiba. isla markuu u soo jawaabay wuxuu yiri aad baan kugu mahad celinayaa. wuxuu yiri reer Gaza layaan mahadsanid buu dhahay. reer Gaza, caruurta reer Gaza iyo dadka shacabka reer Gaza idima iloobin, mar walba qalbigeena laabteena ayaad ku nooshiin. waxaa cajiiba gabadhan layaan alquuqa mahad celinteeda waxay ku sheegtay iyo muuqaalada iyo sida ay wax ugu sawirtay inay tahay mid ka imaada qalbigeeda. ila daa muuqaalka Aljazeera ay ka diyaarisay arrinta. هنا اسبانيا انا ليال من غزة اليوم اجينا ورسمنا راس مصر. هنا اسبانيا انا ليال من غزة اليوم اجينا ورسمنا راس مصر رئيس اسبانيا، وبتمنى هاي الصورة توصل لرئيس اسبانيا وللشعب الاسباني ونحبه كثير. Gracias Layan y a los artistas por este gesto tan bonito, y también a todas las personas palestinas que durante todo este tiempo habéis dado muestras de cariño hacia España. En medio de tanto dolor habéis encontrado un momento para enviarnos vuestro cariño, y por tanto a Layan, a todos los niños y niñas de Gaza y a sus familias quiero deciros algo muy sencillo, y es que el conjunto de la sociedad española os escucha, os ve, os quiere y no os olvida. Ojalá llegue pronto el día en el que los niños y niñas de Gaza podáis volver a pintar sin miedo en las escuelas y vivir un futuro. waxa uu leeyahay layaan aad baad u mahadsan tahay. idinkoo dhibkaa ku sugan xaaladdu idinku adag tahay inaad welina xasuusataan oo noo mahad celisaan, waxayna tusaysaa dunta fiican aad leedihiin iyo dadka aad tihiin. reer Spain bulshadeeda iyo maamulkeeda idima iloobayaan, wayna idinla dareemayaan xanuunka idin haysto. barnaamijka galabnimo oo aad kala socoteen Kow Somali Media qaybtan waa inaga intaa. tan inta aynu kulmayno barnaamijka midka xiga, nabadgelyada Ilaahay dushiina haato. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.